xaafadda ka soo qayb gashay shirkan jiraayid ee ururka looyarada uu ku qabtay gaar ahaan guddida xuquuqda insaanka ee ururka looyarada aad baan idinku mahadnaqayaa nagala soo qayb gashaan shirkan jiraayid mar labaadka guddida ayaa ka hadashay tacadiyadii aanu ka hadlaynay waxa kaliya oo anagu halkan kaga hadli doonaa waxa weeye laba arrimood to koowaad waxa weeye waa wax loo yaqaano supremacy of law nidaamka aanu samaysanay inuu sharcigu sarreeyo waxa xaqiiqo ah waddankeenan iyo systemkeenan sharcigu inuu yahay wax loo yaqaano xibrun calaa warqad qoran laakiin aan la dabaqin waxaanu soo jeedinaynaa nidaamada waddanka ka jira hadday tahay baarlamanka iyo hadday tahay garsoorka iyo hadday tahay xukuumadduba dastuurka iyo shuruucda waddanku inay yeelato sarreynta laakiinse sarreynta waddanku ama nidaamku inaanay noqonin siyaasaddu mid yeelata iyadu sarreynta waxaad moodaa khilaafka ka dhex dhacay baarlamanka dhexdiisa iyo khalkhalgelinta la khalkhalgeliyey howlihii uu ummadda u hayay baarlamanku inay ka dambayso siyaasadii waana xaqiiq jirto waxaynu ku jirnaa xilligii ay kala adkaanayeen siyaasadda iyo sharcigu xilligii kala adkaanayeen ayaynu ku jirnaa maanta somaliland waxay maraysaa marxaladay kala adkaanayeen inuu sharcigu sarreeyo iyo inay siyaasaddu sarreyso waxaan leeyahay ururada professionalska iyo dhammaan aqoon-yahanada reer somaliland inay u hiiliyaan sarreynta sharciga waayo sharcigu inuu sarreeyo macnaheedu waxa weeye qof kasta cadaaladda halkiisuu ku helay siyaasaddu laagse waa wax qof doonayo sharciguse waa waxay ummaddu ku heshiisay ummaddani waxay ku heshiisay constitution kaa qoran bay ku heshiisay ummaddani waxay ku heshiisay shuruucda ka soo farcantay ee ka soo abtirsatay constitutionka inoo qoran ama dastuurka inoo qoran marka waxa weeyaan shuruucdu inay sarreynta yeelataa waxa weeye macnaheedu qof kasta oo reer somaliland inuu helayo xaqiisa rightskiisa qof kastaba sharcigiisa xuquuqdiisa in ay damaanad qaaday sharci damaanad qaaday inuu jiro arrinta garsoorka marka laga hadlayo garsoorka somaliland ma haysto madax banaani ma haysto cabashada maanta baarlamanku uu ka cabanayo maxkamadda sare waxay bees u tahay baarlamanku arrintaa qararkeeda qeyb buu leeyahay qeybtuu leeyahay waxaa ka mid ah waxaa ilaa imika hor yaala golaha baarlamanka xeerkii nidaamka garsoorka ayaa imika muddo dheer hor yaala golaha wakiilada oo ay ansixin lahayn haddii la doonayo garsoor madax banaan horta dastuur ahaan garsoorku ma madax banaano waa loogi dastuur ahaan iyo sharci ahaan ma madax banaano laakiinse xili ay qaadataba dastuurka marka wax ka bedel lagu sameeyo waxaa la gaari doonaa garsoor madax banaan dastuurkeenu wuxuu sheegayaa 3 waaxood inuu qaranku leeyahay oo kala madax banaan waaxda garsoorka waaxda fulinta iyo waaxda sharci dejinta garsoorka mooyaane labadii waaxood kale dastuurku wuxuu u magacaabay oo uu sameeyay wax la yiraahdo golaha xukuumadda ama golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta garsoorka markuu marayo halku ka oranaa golaha garsoorka waxa la yiri guddida cadaaladda number 1 waa meesha lagu dilay garsoorka guddida cadaaladda marka la soo gaaro ee dastuurka ku xusan golihii baarlamanka iyo golihii xukuumadda ayaa u heshiiyey inay qaybsadaan garsoorka markaa tiirkii saddexaad ee garsoorku dastuur ahaan wax jira ma waayo guddida cadaaladda waxay u qaybsan tahay fulintii iyo sharci dejintii garsoorka awood kuma leh marka waxa weeye madax banaanida garsoorka marka laga hadlayo number 1 horta waa inuu dastuurku sheegaa madax banaanida garsoorka dastuur ahaan wayna madax banaayin imika dastuur ahaan ma madax banaana marka baarlamanku waa inuu ka shaqeeyaa siduu garsoorku madax banaanaan lahaa maxkamadda sare maanta siyaasadda ka sareysa shuruucda waddanka oo dhan siyaasad baa ka sareysa siyaasigu wuxuu yidhahdaa inoo sharciya siyaasigu wuxuu doonaa inoo sharciya laakiin waxa inoo qoran sharci inoo maaha
marka golaha baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay si degdeg ah u ansixiyaan xeerka nidaamka garsoorka oo inkastoo aanu wada boqolkiiba boqol aanu garsoorku madax banaani aanu ku helin aan isleeyahay 70% madax banaani buu xeerkaasi siinaya oo markii uu dambeysay daraafkii uu dambeeyay la sameeyay waxaan ogaa in kaaliyayaasha iyo miisaaniyadda ku baxaysa garsoorka loo duway maxkamadda sare oo wasaaradda cadaaladda laga soo jaray maxkamadda sare ma maamusho kaaliya maxkamadda sare imika waxa weeyaan garsooraha mushaarka wasiirkaasi iyo wasaaradda cadaaladdaasi furintii baa haysata dhaqaalahoodii stationarygoodii shidaalkoodii daba access waxay ku shaqaynayeen oo dhan waaxdii furinta haysata de garsoorkaas lama odhan karo maanta waa garsoor madax bannaan lama odhan karo marka waxaan leeyahay anugu sidii aan ku ogaa daraafka xeerka nidaamka garsoorka ee baarlamaanka hor yaalla xoga madax bannaaniya ayuu siinla garsoorka marka waxaan kula talinayaa golaha oo aan usoo jeedinayaa baarlamaanka inay ku dadaalaan xeerkaas si ay u ansixin lahaayeen weliba aqoon sharciya inay ka muuqato xeerka oo mabda'a guuda laga duulaya uu noqdo dee inay madax baneeyaan garsoorka arrinta saxaafadda marka laga hadlayo saxaafaddu dhismaha waddanimada qayb bay ka tahay toosintana inay sheegaan dhaliilahana sheegaan itigiskoodana ilaaliyaan saxaafadda lafteedu xorriyad mutlaqa ma laha oo dee siday doonto ma yeeli karto saxaafadda wixii waddanka waxyeelaya iyo wixii principalka mabaadida guudada waddanka waxyeelaya inay dhaawacdo maaha laakiin waa inay hataa iyaduna toosin inay wax toosiso saxaafaddu waa inay hataa saxaafaddu waa inay xor ahaataa da ay xorriyad u helaan dee gudashada waajibaadkooda tacadiyada waxaanu cambaaraynaynaa tacadiyada ay xukuumaddu kula kacday saxaafadda suxufiyiintii xidneed baanu cambaaraynayna tacadiga loo geystay hubaar baanu cambaaraynayna tacadigii u dambeeyey ee lagu xidhay xaruntii wargeeska hubaar urka loo yaro toos way u cambaaraynay waxaanu leenahay xukuumadda xorriyadda saxaafadda ha ilaaliso bini aadamku ummadaha adduunyadu ictiraaf baynu raadinayna ictiraafkay ummadda somaliland ay baadi doonayso ee ay dadaalku ugu jirto principalkay adduunyadu ku qiimeynaysaa waa madax banaanida garsoorkeeda iyo madax banaanida saxaafadeeda labadaa haddii la waayo ictiraafeenaan raadinaynu iska fadhino ummad kasta wafdi kastoo waddanka yimaada waxay eegayaan nooca garsoorkeeda iyo nooca saxaafadeeda markaa dawladdu ama fulintu haddii ay cadaadiso garsoorka haddii ay cadaadiso qareenada haddii ay cadaadiso saxaafadda meel aynu soconaa ma jirto mustaqbalka waddanku markaa madow u gelaya marka waxaanu leenahay wixii aynu doonaynay fishanka aynu u soconay aragtidii dheereed aynu u soconay wax qof doonaya yaan lagu diri qof wasiirku waa nin shaqaalaha madaxweynaha iyo de waddanka mas-uulka wasiirada madaxweynaha hadda dirtay oo yaa u yihiin de staff u yihin siyaasadda waddanka madaxweynaha haddii adeer laga doonaya siyaasadda waddanka madaxweynaha jeexa baarlamankuna waa kii kugu controlay baarlamanka waxaanu leenahay oonu baaq usoo jeedinayna inay waajibaadkooda qabsadaan ay ku dagaalamaan sarreynta sharciga baarlamanku inuu ka hor yimaado sarreynta siyaasadda inay siyaasaddu sarreyso asalaamu calaykum waraxmatullah